guddiga qandaraasyada qaranka ee Somaliland ayaa shaaciyay shirkadaha ku guuleystay 3 mashruuc. Mashaariicdan ayaa waxay kaliin keenista qalab caafimaad, dhismayaasha buundooyinka isku xidha Burco ilaa Ceergaba iyo sidoo kale keenista qalab lagu baadho macdanta. Munaasabadani ayaa ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay shirkadaha ku guuleystay gudoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Mudane Nuux Maxamed Xuseen. Waxaan u ballansanayn go'aankii kama dambaysta ahaa inaan halkan idinka sheegno 3 mashruuc ee saaka lagu tartamay dhismaha buundooyinka wadada Ceergaba wadada Burco Ceergaba waxa ku soo tartamay 12 shirkadood waxa ku guuleystay Guure Construction Company qalabka caafimaadka isbitaalka degmada Garbadadar ee gobolka Awdal waxa ku soo tartamay 5 shirkadood waxaana ku guuleystay Amal Service qalabka lagu baadho macdanta ee loo doonayo wasaaradda tamarta iyo macdanta waxa ku soo tartamay 6 shirkadood waxaana ku guuleystay Horn of Africa dhammaan shirkadaha guuleystay waxay guddidu kula dardaarmaysaa inay qaranka qalab tayo leh iyo dhismo tayo leh ay u dhisi doonaan shirkadaha hadhayna waxaanu u rajaynaynaa guul shirkadaha hadday jiraan shirkado cabatin qaba guddidu way qancinaysaa diyaar bay u tahay geestooda waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan guddiga qandaraasyada qaranka oo shaaciyay sida cadaaladda leh ee guddigu ay u kala saaraan shirkadaha tartamayaasha ah. Anta 3 barkaan sii daynay waxaan leeyahay cidda ku guuleysata inay wax tayo leh oo si daacadnimo ah ugu dhisaan oo dib u soo noqonayna ama waxba dumin ama xumaanin iyaan maxay ahayd ka codsanaya waayo waxa jirta waxyaabo inta la sameeyo la yar galgaliyo idinkoo ilaahay ka baqaya dalkiinana u turaya dadkiinana u turaya iyaan inagu boorinaya inaad maxay ahayd wax tayo leh u dhistaan guuleystayaashana waxaanu leenahay qaranka waxa la rabaa inaad u dhistaan wax tayo leh oo qaranka wax tara qoladaan guuleysanna insha Allah geela loogu heesaa indhayala lowkiisa oo mari in la nacay mood waa si loo yahay qoladaan guuleysan waxaanu leenahay idina biraha guuleysan doontaan magacaygu waa Maxamed Yuusuf waxaan ahay gudoomiyaha shirkadda Horn of Africa waxaan ku guuleystay qalabka baadhista macdanta ee loo doonayo wasaaradda macdanta insha Allah waan mahad celinayaa guddida qandaraasyada secondly waxaan ballan qaadayaa inaan qualification wuxuu ku yaalaa bill of quantity-ga in alaabta halka ku taala aan keenay insha Allah. Calaqa Macaari Telefishinka Hargeysa.